waxaa muuqaalkan ku marti ah dalkaad inta badan la socotaan weerarkiisa isla markaasna saaran shaashadaha caalamka ah. Muuqaalkani kuma saabsana xaaladda cakran ee ka jirta dalka Yemen, balse mid aan isku dul istaagi doono dhinacyada kala duwan ee uu leeyahay dalkani da'da weyn. mid ka mid ah dalalka da'da weyn wuxuuna la baratamaa Masar iyo Ciraaq marka la eego xadaaradiisa, waxaana xusid mudan in ay qabaan culimada qaar xadaaradda Yemen inay tahay midda ugu qadiimsan taariikhda bashireedda iyo inay tahay asalka Carabta. waxaa ka talin jirtay Balqiisa oo maamuli jirtay boqortooyadii Saba. boqoradani waxa ay nooleed xilligii Nabi Suleymaan, waana mid lagu sheegay Quraanka Kariimka. sidoo kale waxaa la sheegaa inay degnaayeen qoomul Caad. sida rasmiga ah waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Yemen, waana dal galbeedka Aasiya, gaar ahaan jasiirad lamuudka Carbeed, wuxuuna xad la leeyahay dalalka kale ah Sacuudiga, Oman. galbeedkana waxaa kaga beegan Badda Cas, koonfurtana waxaa ka xiga Gacanka Cadan, halka bariga ay kaga beegan tahay Badda Carbeed. bad ahaan waa dalka 49aad ee ugu badka weyn caalamka, wuxuuna ka fadhiyaa bad ka badan 500,000 oo kiiloomitir isku wareeg ah. juqraafi ahaan dalkani Yemen waxaa loo qeybiyaa 4 qaybood oo kala ah: gobolka siman ee xeebta ah, iyo gobolka buuraleyda, gobolka taagaga, iyo gobolka qallalan ee saxaraha ah. tirada dadka dalkani waxaa lagu sheegaa 28 milyan, 92.8 waa Carab. qoomiyadda labaad ee ugu badan dalkani waa Soomaali, waxayna ka yihiin dadka dalkani 3.7. dalkani waxaa ka jira Maleeshiya u hubeysan hab beeleed oo haysta hub fara badan, waxaana had iyo jeer ka dhacaa dagaalo u dhexeeya maleeshiyadaasi. jaadku muhiim ayuu ka yahay dalkani, wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha sida maalinlaha loo cuno. waxaa dhaqan ka ah in dadku isugu yimaadaan qolal lagu magacaabo dawaabin oo lagu qaylo. xitaa qaadku waa la isku marti qaadaa. waxaa dalka intiisa badan loogu yaqaanaa quutu saalixiin ama quudkii awliyada. qaadku waa dhibaato weyn oo dhanka beeraha iyo dhaqaalaha ah, waxaana lagu beeraa ruuc ka mid ah dhulka ku wanaagsan beerashada, wuxuuna booska kala baxay dalagyo badan ee ku tiirsaneyd Yemen sida bunka. waxaana dhanka beeraha ka shaqeystaan 54% dadka muruqmaalka ah. wax soo saarka dalkana beeruhu waxay ka yihiin 20%. dadka dalkani waxaa lagu sheegaa 27.3 inay yihiin reer magaalku, halka reer miyiguna lagu sheego 73.7. aqoon la'aan tahay dalkani waxaa lagu sheegaa 38.8 oo 80% ka mid ah ay degan yihiin dhulka sareeya. dalkani wuxuu ka mid yahay dalalka ay ku xoogan yihiin Shiicadu, gaar ahaan qaybta la yiraahdo Yaziidiyada. dadka degan gobolka bariga fog ee loo yaqaan Mehra waxa ay ku hadlaan luqad u gaar ah. sidoo kale dadka degan Suqadara waxay ku hadlaan luqadda Suqadariga ah, waxaana diiwaan gashay in dadka degan jasiiradda Suqadara inay ka soo hijroodeen gobolka Mehra. artipelago ah oo ka kooban ilaa 6 jasiiradood, waxayna dhacdaa badweynta Hindiya, waxayna ku fadhidaa bad ka badan 3,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah, waxayna Soomaaliya u jirtaa 240 kiiloomitir, halka Yemen oo maanta lagu tireenaa u jirta 380 kiiloomitir. waana taas dooda xoojinaysa in jasiiradan leedahay Soomaaliya. dalka Yemen 2 jeer ayaa lagu sheegay Quraanka Kariimka ah, waxaana lagu kala sheegay suuradaha kala ah Saba iyo Ahqaaf. qaar ka mid ah xalfadaha guur ee dalkani waxay socdaan 21 maalin, waxaana ka mid ah ciyaaraha laga ciyaaro ciyaarta loo yaqaan albaraca oo sidoo kale loo yaqaan ciyaarta dagaalka iyo jaceylka. sidoo kale dalkani waxaa dhaqan ka ah inay ragga ku hubeysan yihiin tooreyda oo muujinayso qof walba inuu diyaar u yahay dagaalka. bunka la yiraahdo mocha asalkiisu waa Yemen, meeshii ugu horeysay oo laga soo saarana waa magaalada loo yaqaan Moqa oo dhacda dalka Yemen. waxay jiraan kutubyo gaar ah oo sheegaya in magaca Afriqiya oo Carab ahaan loola jeedo Afrika inuu ka yimid boqorkii Yemen oo la oran jiray Afriq bint al-Manar. buurta dalkani ugu dheer oona lagu magacaabo An-Nabiy Shu'aib, wuxuuna joogeeda gaarayaa 3,666 mitir. dalka Yemen waxaa laga helaa ceelka ugu yaabka badan caalamka, kaasoo lagu magacaabo ceelkii Barhuud. waxaa jirta sheekooyin caan ah ku saabsan ceelkani, waxaana la sheegaa in mid ka mid ah boqoradii boqortooyadii Ximraan in uu kaashaday jin si ay ugu qodaan meel uu ku keydsado hantidiisa. markii uu geeriyooday boqorkii ay degeen kooxdii jinka ahayd ee uu adeegsan jiray boqorka,
waxaana haatan loo yaqaanaa magaaladii jinka iyo ceelkii madooba ama ceelkii geerida.